الله وإنا إليه راجعون. الله وإنا إليه راجعون waxaan ka tacsiideynaa geeridii ku timid Allah uu naxariistay wakiil wareedka radio kulmiye ee gobolka Shabeellada Hoose oo shalay galinkii dambe lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose walaalkay Cabdiwali Cali online Allah uu naxariisto qabrigana waasac Allah uga dhigo maanta lagu aasay deegaanka ceelasha biyaha geeridii inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun Allah uu naxariisto saaxiibkeen Cabdiwali Cali online oo aan shaqo wadaag ahayn nin dhalinyaro oo dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeynaya ayaa gacan ka xaqdaran xalay ku dishay degmada Afgooye Universal TV askala shaqeynayna nin qiimo badan oo ahaa oo shaqadiisa saxaafadnimo ku dhex jiray ku dhintay Allah uu naxariistaan leeyahay runaantii aad aynu taabatay hadaan nahay Universal TV teamkiisa waxa waaye tiir dhaxad naga dhumay oo naga go'ay oo ahaa Allah uu naxariisto aan tabi doonaa waalidiintiisa xaaskiisa iyo caruurtiisana waxaan samar iimaan Allah ka siiyana mudooyinkii la soo dhaafay wax oo maaragtay hanjabaada oo soo gaaray ma jireen wariyaha laamay wax hanjabaado oo wariyaha soo gaaray ma jirto caadi uu iskala shaqeynay shaqadiisa nolol maalmeedku ku jiray Soomaaliya marka joogtidna waa dareemi kartaa qofka saxafiga Soomaaliya ka shaqeynay dhibaatada uu leeyahay iyo dhibaatada uu ku shaqeynayo dhinac walbaba marka wuxuu kamid ahaa saxafiyiinta shaqeynaya asoo ayagoo shaqadooda ku dhex jiro ru'aantii dibkaas oo qabsaday Allah uu naxariisto qof walba waa dhimanaa laakiin gacan ka xaq daranay saaxiibka Ilaahay ku sabab waxaan maleynayaa shaqada saxafiyiintana shaqa oo fudud ma aha shaqa culus waaye oo dhinac walba ah dhibaato kala kulmaysa marka wallahi Soomaali qof ka shaqeynayana culays badan oo dhinac walba u dareema oo dhinac walba kaaga imaanayo marka culaysyadaas way jiraan waligoodna way jireen waan la dareemay sanadii ugu dambeeyay ka saxafiyiinta culaysyadaas qaar way haajireen qaar way joogan dhibkay ku shaqeynooyin marka dhibaatadaas lagu jiro oo kamid noqdo saaxiibkay Allah uu naxariisto badal qaar qaban Allah siiyo dadkii uu ka geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiinayaa Allah uu naxariistay geerida ku timid Cabdiwali online waxa uu kamid ahaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ee aan bahwadaagtanahay waxa aan ku midoobnay dhinaca shaqada waxa aan walaalo ku ahayn in aan bulshada Soomaaliyeed u wada shaqeyno cid allaale cidii dishay iyo cidii ka dambeysayba waxa kala xisaabtamaya Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ahaa qof wanaagsan shakhsi nadiif ah shaqadiisa ka adag cidna aan wax u dhimin laakiin gacan ka xaq daran ayaa dishay naf kastana geerida waa ay dhiminaysaa taas Allah subhanahu wa ta'ala ayaa inoo sheegay waana ku faraxsanahay in geeridaas qof kastaba uu la kulmayo laakiin waa xanuun maalin walba in qof journalist ah wariye ah bulshada u shaqeynaya lagu mashquulo ama naftiisa iyo nafsi dhibaateeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa cid allaale cidii ka dambeysay in uu soo saaro waxaan uga tacsiinaynaa qoyskiisa ehelkiisa iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba Cabdiwali online waxa uu ahaa nin lagu yaqaan xaqiiqda runta ka tarjumaysa Soomaalida haddana waxa ay u badato qof kasta oo runta sheegay in naftiisa ay dhibaato ka soo gaarto Allah uu naxariisto cidii ka dambeysayna Ilaahay ayaa kala xisaabtamaya wana maasantiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaan tacsiyalkan uga direynaa haddii aan nahay wariyaasha ku nool magaalada Muqdisho walaalkeen Cabdiwali online oo kooxo maaragtay runtii aan isdhihi karno mar walba waxa ay cadeystaan dhiigga wariyaasha Soomaaliyeed maaragtay ku dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose runtii aad ayaan uga xunnahay oo aan cambaareynaa Cabdiwali runtii waxa uu ahaa nin dhalinyaro oo aad maaragtay u firfircoon isla markaasina u soo hadlayay idaacadda kulmiye iyo sidoo kale telefishinka Universal runtii gacan ka xaq daran ayaa dishay dhammaan qoyskiisa eheladiisa iyo asxaabtiisaba caleenahay samir iimaan Allah naga siiyo runtii wariyaashana waxa ay mar walba ku shaqeeyaan xaalad adag oo runtii u badan in loo hanjabo mararka qaar maaragtay xataa nafsada la dhaafiyo runtii marka aad u xunnahay haddii aan nahay wariyaasha ku nool Muqdisho waana cambaareynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut nafal maalin bi adduunkan ka tagaysa Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Cabdiwali Cali online runtii gacan ka xaq daran dishay sida aaminsanahay anagu waana meel loo wada socdo aad baan uga xunnahay runtii sida wax u dhaceen
annagana wuu naga tirsanaa radio kulmiye haddaan nahay oo xubin naga mid oo wariyihiin halkan nooga soo warramayo ahaa ilaahay waxaan uga baryayaa in qabriga uu waasiciyo naxariista janno siiyo kitaabkiisa midabka ka siiyo ilaahay uu rabbi raxmaan oo u naxariiso walaalkan cabduuli maamulka degmadan waxaan ka rabnaa inay jawaab naga siiyaan bal sidii ku dhacday in maalin cad inta qof lagu dhex dilay magaaladii haddana la baxsaday iyadoon ognahay in mas'uuliyad uu ka saaran yahay sugidda amniga muwaadiniinta oo wariyaashu ay ka mid yihiin wariyuhuna waa bulshada indhahooda marka bal inay maxay ahayd way nagu adag tahay inaan qaadano aragtida ah inta magaaladii wax lagu dhex dilay haddana la baxsaday marka tan waa dhibaatooyinka la kulmayaan saxafiyiinta annagu marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto walaalkeen waa meel la wada socdo gacan ka xaqdarana dishay maalin maalmaha ka midana way dareemi doonaan kuwa xaqdarada isku dilay inay dulmi ku dilaan walaalkaas maalin aan maxay ahayto cadaaladdu ilaahay la hortaagan yahay cadaaladda ilaahay la hortaagan yahay oo aan la kala xoog badnayn oo aan hub la haysan oo ilaahay xaggiisa loo sameeyahay maalintaasina ogaan doonaan inay xaqdarro ay ku dilaan walaalkeen ilaahay ha u naxariisto qabrigan ilaahay waasac uga dhigo ayaan lena inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi ugu dirayaa walaalkay cabduuli cali online oo shalay galabta lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose cabduuli cali online wuxuu ka tirsanayay saxafiyiinta soomaaliyeed waa ka xumahay wixii dilay cabduuli cali online waxaan si gaar ugu tacsiyeynayaa idaacadda kulmiye iyo universal TV iyo dhammaan qoyska iyo qaraabadii oo ka geeriyooday inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiideynayaa geeridii ku timid allah u naxariistay wakiil wareedka radio kulmiye ee gobolka shabeellada hoose oo shalay gelinkii dambe lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose walaalkay cabduuli cali online allah u naxariisto qabrigan waasac allah uga dhigo maanta lagu aasay deegaanka ceelasha biyaha geeridiisa aad ay xanuunjinay qofaa soo wada shaqaysaan oo dhowr mar warkiisa idaacadda ka saartay markaad geeridiisa haddana si lama filaana social media ama barta Facebook aad ugu aragtay aad ay ii damqinaysaa shalay markaan shaqada ka baxay guriga markaan tagay waa iska mashquulay markaan xalay ku soo laabtay qadka gaar ahaan barteeda Facebook waxaan ku arkay geeridiisa waana geeri aad ii taabatay maamulka gobolka shabeellada hoose waxaan ugu baaqayaa in kooxihii ka dambeeyay dilka wariye cabduuli cali online in sharciga lagu keeno waa wariyii ugu horeeyay ee sanadkan 2020 lagu dilo Soomaaliya niyad jabay lagu keenaysaa geerida walaalkay marka waxaan leeyahay cabduuli Allah ku naxariisto qabriga Allah ku waasiciyo walaalo iyo saaxiibo ku jecel wad wadaag aheedeen ayaad ka tagtay sida adduunka lagaaga jeclaay aakhiraha lagaaga jeclaado markii la jecel yahay Allah ka dhigo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi subhanahu wa ta'ala jannadii firdawsa ka waraabiyo walaalkeen insha Allah ta'ala gacan ka qadarnaa dishay waqtigiisa ayaa inta ku ekaa insha Allah ta'ala ilaahi waxaan ku rajaynaynaa qoyskii oo ka tagay iyo asxaabtiina samar iimaan oo ka siiyo aadana ugu xunaa maamulka ee degmada afgooye waxaan ka codsan inay baaritaan ay ku sameeyaan ay jawaab waafi ay ka keenaan sababta keentay in maalin cad qof lagu dhacdilo degmada afgooye haddana qofka haddana wuu baxsaday la yiraahdo marka arrimahaas dhibaatooyinka waxay qayb ka tahay wariyaasha Soomaaliyeed meel ay joogaan taabanaya waxaan ka codsanaynaa in cid ay qusayso in arrintaas ay baaritaan ay ku sameeyaan wabillahi tawfiiq ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiideynayaa geeridii xanuunka badneed oo ku timid Allah u naxariistay walaalkay wariye cabduuli cali xasan online wuxuu ka mid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed cabduuli geeridiisa aniga si gaar ah ii taabanaysa maxay hal station aan ka wada tirsaneen wuxuu inoo ahaa wakiil wareedkii gobolka shabeellada hoose inooga soo warrami jiray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed eheladii qaraabadii iyo dhammaan bahda saxaafadana waa uga tacsiideynayaa geeridii xanuunka badneed oo ku timid walaalkay maamulka gobolkan waxaan ka codsanaynaa inuu cadaalad hor keenaan dadkii ka dambeeyay dilka cabduuli